Dayuuradahan hamulka qaado oo qandaraas la galeen qaramada midoobay iyo geeka burburtay xilliga ka dagaasi garoonka dayuurado Elberde ee maamulka Koonfur Galbeed. Dayuurada markii kubadda jidka dayuurado ka roorayaan iyo ka socotay si ay injeeta gargaar bini'aadanimo ka talagalay hay'adda raashinka adduunka. Warar hordhacaya sheegayaan in hal qof ka amuuday lama kalena ka dhaawacantay qaramada midoobay ee Soomaaliya tacsiin dareen qoyskii iyo asxaabtii ku amuudeen sidoo kalena caafimaad degdeg ah rajayeen dadkii ka dhaawacmay iyo lagu jawaabo shirkaasay qaramada midoobay iyo okaashadaas shirkadda dayuurado ganacsiga lacag kasi maamulka federaalka ee kan Koonfur Galbeed si loo suubi baaritaan dhab ah. Barnaamijka raashinka adduunka iyo door muhiim ah ku dheelay walku qowdowga baahada in la deersay dadka baahan qaramada midoobay oo wali ku go'onta badqabka shaqaalada iyo wayna qaadan doonta tilaabooyin laga maarmaan ah si loo hortago shilkun kala mid ah inuu soo dhii mustaqbalka yalla ku eri qoraal ha ku baahi qaramada midoobay.